السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هرقيسانو جوجنا قلبيتك هرقيسانو جوجنا سيدي aan u badnayn waxaanu joognaa marka controlkii hore la dhaafo inta aan la gaadhin amaano ayaa loo laabayaa dhinaca qiblada ama waqooyi dhulkan halkan ku yaala ninkii fahansan baa fahansan waa meel magaaladiina u dhow laydkiina le oo kuwa bitooyadu inaga dul taagan yihiin imikana dhismaysa imikun bayba dhismaysaayo dadku soo yar degdegaya oo dadkii hore u iibsadina seeskii iyo wixii soo waayahay guryahaas idinka arkay meesha laga dhistay halkan ballood baanu joognaa kaarikoona ah oo halka kan ku yaala waa kaarikoone balloodkani wadda xaggan ay ka maraysaa xagga gaadhigiigu yaalay ka maraysaa ama kaabada ay isaga u dhaxaysaa wadda kalena xaggan ay ka maraysaa xaggaas uu kacaysaa xaggii magaalada halkan laag baa laakiin dhul baa ka xiga halkan laag baa laakiin dhul ayaa ka xiga idinka arkay dajingadaas intuu jirto macdan labaaba qof dhagax ka dhistay halka kale idinka arkay walaalwaka oo waka macaamiisha sharafta waxa kale oo sheegnaa halkan dhul badan baa ka xiga balloodkii la iibinayo waka laagtiina wata dhul ayaa ka xiga kulli qof walba iska arki doona xaggan sahan iyo waxba iyo masaajidka oo masaajidkaasina beertan buu kamid yahay beertan bay ilaa halka teedsan balloodkan waxa laga bilaabay kaarikoonaha damiin maal baa leh magaalada dabaqyo dhaadheer ku leh waxa laga bilaabay 24,000 baa laga bilaabay kuwa kalena waliba waanu idin tusanaa oo iyaguna iiba ilaa 20 laga bilaabay hoosna looga kacayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar kale soo dhawaada waxa aanu tagnay gurigii aan marka hore hortaagnayn waka gurigii aan ku soo dhaweynay hortaagnayn waka waxaanu uga kacnay dhinaca galbeed oo aadna uga fogeyn seesaskan u dhaxeeya way idinkan arkaya waxa kale oo xusud mudan inaad magic ahaan ama logic ahaan aad fahantaan aqliyan inaad fahantaan meeshani wadada intee u jirtaa idinkoon iman oo de waqtiyo shidaalid ka soo bixin hayni faasiyo halka waxa ku yaala hangar buluuga hangarka buluugii wuxuu ii jiraa de waxaan 1 kiiloomitir dhanayn haddaan isaga toos ugu dhaqaaqo laakiin halkan badda wadadu way ka dhowdo halkan waa laga tagi karaa halkani waa iskuulo waa masaajido wadda toosa jirta oo ka timaada xaggan kale magaala inoo dhaafsiisan xaggan guriyo dhagaxa ayaa inaga xiga oo idinka arkaya guriyoogaas ay inaga xiga qof tan guuraya oo 20,000 nus ballood ah inuu siisto magaalada dhexdeeda ka doorbidaya inuu iibsado ballood dhameystiran hadduu doono ha kala dhisto hadduu doono ha wada dhisto laakiin ballood dhameystiran doonaya ayay halkani dantiisa tahay waxa kale oo xusud mudan guri halkaas waan idin soo duubi jiray guriga taanka ku saaran yahay waa guri aad u qurux badan gurigan uu ka dambeeyaan balloodadani midkiiba ka hore wuxuu 24 damiinu maal iibinayo kanna waxa weeye 20,000 oo dollar kaabadani waa mid kaabadan kalna kaabadiisa kalna xaggaas ka sii jeeda wuu sharciyeysan oo sharcigii ayuu leeyahay kaarikoonana weeyaan oo laba wajahadood ama laba wado ayuu leeyahay mar wal oo lagu yiraahdo dhulkaas waa kaarikoone uu ka fiican yahay dhulka dhexda ee halka wajahad leh waayo laba guri baaba sii kala jeedsan kara walaal soo dhawaada mar iyo laba si sharaf leh waxa kale oo xusud mudan nus balloodho 10,000 9,000 meelahaas xataa eeriyadan waynu ka soo heli karnaa waynu ka soo raadin karnaa mar kale haydii ku celiyo goobta halkay tahay marka la soo dhaafo buurta kala jaxan ee la soo gaaro Grand Hadi ama Egas Control waxoogaa baa la soo dhaafayaa amaano intaan la gaadhin baa laamida looga degayaa dhinaca qiblada dhul magaaladiina u dhow qiimo ahaanna jaban meelo waxa jira magaaladu intuu dhulkan uu jiro aad uga durugsan haddana qiimo ahaan ka qaalisan halkan waxa ila fahmi doona nin in badan ka fikiray inuu lacag yar ku helo dhulka ugu fiican iyo faalalka ugu fiican iyo goobta ugu fiicanba soo dhawaada macaamiil gurigaan idin sheegayay waa kan macaamiisheeda sharafta leh goobtii aanu joognayna waata goobtii aan joognayna
wataa macmin wataa halkii aan joogayna wadadan unbaa toos u tegaysa wadinka arkay guryaha dhisan wadinka arkay gurigii sii jeeday ee markii hor taagnaa wakaa soo dhawaada macmin si sharaf leh